khiyaarta sameecadaha nagala socda iyo saaxiibada shaashadda inagala jaanqaadaya halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda Somali Public Radio ama afka Soomaaliga aan ku idhaahdee idaacadda bulshada Soomaaliyeed xarunta KFAI mowjadaha ku gadaaman magaalooyinka mataanaha ah ee 90.3 magaalada Minneapolis iyo waliba magaalada St Paul oo aad nagala socotaan mowjada FM-ka dhererkeedu yahay 1.6.7 ee aad ka dhegaysataan magaalada St Paul. saaxiibayaal dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhowaada oo ku soo durka barnaamijka siyaasadda iyo Soomaaliya. waa barnaamij aynu ku gorfayno isla markaasina aynu ku falanqayno habka iyo hanaan socodka siyaasadeed ee Soomaaliya. barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa dimuqraadiyeynta Puntland ama u tallaabsashada hanaanka iyo nidaamka dimuqraadiyadda maamulka Puntland isla markaasina looga hayaamo hab beeleedka madaxda iyo xildhibaanada lagu soo doorto kaasoo mid ahaa ay howshiisa muddo socotay. saaxiibayaal dhegaystayaal waxaa barnaamijka marti inoogu ah caawa qurba joog aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ka soo jeeda maamulka iyo waliba deegaanada Puntland. waa Cabdiraxmaan aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Puntland aan ka bilaabe waa Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Geblax ku magac dheer waa aqoon-yahan ka soo qaatay shahaadada loo yaqaan MBA-ga takhasuska Project Management Colorado Technical University sidoo kalena haysta shahaadada Computer IT-ga kana qaatay jaamacadda Seneca College of Applied Arts and Technology. Geblax waxa uu maareeyo sare ka soo noqday shirkado waaweyn oo ay ka mid yihiin Sony Electronics iyo waliba Gateway. Geblax haatan waa murashax madaxweyne u taagan Puntland isla markaana taageerayaal badan ku leh gudaha Puntland iyo waliba gobolka aynu haatan joogno ee gobolka Minnesota iyo waliba guud ahaan dalka Mareykanka gudihiisa. sidoo kale waxaa barnaamijka caawa marti inoogu ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo runtii caan ka ah gobolada Mareykanka gudihiisa waa Cusmaan Sheekh Axmed Sheekh Isxaaq. waa aqoon-yahan Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanada Puntland isla markaasina haysta shahaadada loo yaqaan PS-ta Information Technology. Cusmaan haatan waa isuduwaha qaybta cilmi baarista ee University of Illinois Chicago. ugu dambeyntii waxaa barnaamijka caawa marti inoogu ah wariyaha Soomaaliyeed ee caanka ah waa Cabdirasaaq Cali Boos oo ku magac dheer Bustayare. waa suxufi Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanada sidoo kale Puntland kaasoo ah suxufi gaar ahaan waliba sida tooska u falanqeeya siyaasadda iyo waliba sportiga haystana degree mediaha iyo communicationka. marka hore waxaan idinku soo dhaweynayaa gadigiina aaladda mikrofoonka ee idaacadda Somali Public Radio. dhawaanahanba waxaa la hadal hayay deegaanada Puntland iyo waliba gobolada kale ee Soomaaliya ka hayaamida ay Puntland ka hayaamayso hab beeleedka iyo waliba wax u qaybsiga beeleedka. waxaana la sheegayaa in loo hayaamayo dimuqraadiyeyn iyo nidaamka dimuqraadiyadda. waa maxay dimuqraadiyeyntaasi murashax Geblax sideese looga faa'iideysan karaa? nidaamka furfurani wuxuu u yahay daawo horumarka ummadda. hay'ad maskaxdeedii baa ummadda wax soo saaraysa markii hornimo jirto oo nidaamku furfuran yahay. Puntland markii la dhisay waxaa lagu dhisay nidaam ku meel gaara oo ka yimid isimada iyo siyaasiyiinta iyo intii markaas u danqanaysay oo isku tagtay 3 sano ahaa. waxaa loogu talagalay in laga gudbo 3 sano gudaheeda oo loo gudbo nidaam dawli ah oo laga gudbo nidaamka qabiiliga laga gudbo. nasiib darro waxaa dhacda maamul kasta 4 sano markuu dhammaysto isagoo aan dhisin nidaamkii dawliga ahaa in waqti ka dhaco. waxa ugu horeeya oo nidaamka xasuustaan waxa weeye waqtigaana loo kordhiyo in aan saan wax u dhisno wax u hagaajino lagamana yeelo. taas waxay keentaa in odayaashii mar labaad iyo qabaa'ilkii dib loogu laabto oo la yidhaha baarlamaan noo soo xula. isimada iyo odayaashu waxay sugaan mar kasta midkaa cusub oo la xulay inuu dowlad dhaliyo. ilaa iyo hadda waxaa lagu jiray sirkaas baa lagu jiray wax nidaama oo runtii dawli ah oo dhismayna ilaa hadda ma hirgelin. haatan xaaladdu meesha hadda marayso Puntland waxaa weeye bal horta waxaa meesha ka baxayba liberty wax la yidhaahdo. mudnaantii qofka muwaadinka ah
wuxuu lahaa codkiisa iyo maaragtay xornimadiisa ayaa xoogaa hadda ay aada u adag tahay. nidaam dictatorial ka jira oo kind of oligarch system ah oo aan institution building ku mashquulsanayn xukun boob iyo xoogaa xoog ka muuqdo. marka hadda waxaan is leeyahay nidaamkaas furfuran waa wax aada iyo aad loogu baahan yahay. wax hortiis hagaagi karaana ma jiraan. waa hagaag waa gartay. su-aasha xigta waxaan weydiinayaa cabdirasaaq cali boos, sidee baa loo hirgelin karaa dimuqraadiyiinta? ugu horeyn intaanan hirgelinta u gudbin waxaan jeclaan lahaa inaan laba arrimood ka iftiimiyo. arrinta koowaad waxaa weeyaan horta dimuqraadiyadii maxay tahay? dimuqraadiyad sideedaba adduunyada nidaamada ka jira oo soo maray waxaa jiray nidaam la yidhahdo shuuciyad, waxaa jiray nidaam la yidhaahdo xukun military, waxaa jiray nidaam la yidhahdo boqortooyo, waxaa jiray nidaam la yidhaahdo maxaan ku rahdaa jabhad intay meel qabsatay, waxaa jiray. dimuqraadiyaddu waxaa weeye waa shacbi wax doorto oo cod leh. qofku noocu doona ha ahaado, qofkii shacbigaas ka mid ah ama qof waayeela ahaado ama qof dhalinyaro ahaado, inkastoo sharciyada dunida kala duwan yihiin, laakiin 18 jir oo kaleento uu cod samayn karo. marka siduu gablax waxaan ku raacsanahay qodobka uu sheegay uu yidhi wax waa in hoos laga soo bilaabaa. tusaale ahaan doorashada waa in laga soo bilaabaa guddoomiyayaasha degmada, oo meesha haddeer qof keliya uu ninka odayga soo xulayo uu leeyahay ninkaasa annagana matala. waa in marka hore into dadkii tuulo walba intaasoo qof ka tartamaan, kadibna ninkaas saas lagu soo doortaa. laakiin shacbiguna markaa ay soo doontaan baarlamaankaasina iyo madaxweynaha waa in shacbigu soo doortaan. madaxweynaha xitaa baarlamaanka hadda puntland oo kaleento baarlamaankeeda wuxuu ka kooban yahay 66 qof. 66 qof ayaa mar gacantaag baa soo maray, haddeera sanduuq baa wax lagu ridaa, kadibna qof ayay doortaan. marka hore waxaan u mahad celinayaa saalax doonyaale oo runtii fursaddan qaaliga ana siiyey inaan discussionkan ku saabsan dimuqraadiyiinta puntland inaan ka hadallo. marka xigta waxaan salaamayaa marti sharafta kale oo meesha ila joogta sida maaragtay musta yare cabdiraxmaan gablax, waa salaamantihiin. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dadka naga daawan doona shaashadda dunida iyo sidoo kale naga dhegeysan doona idaacadaha adduunka oo dhan. salaan ka bacdi horta waxaan filayaa inay horta guulba tahay in maanta aan ka hadalno dimuqraadiyiin. sax. oo waxaan soo marnay xiliyo dagaal iyo rafaad iyo xoog meel lagu yimaada iyo qof meel ku habsada iyo baan soo marnay. marka maanta horta in dimuqraadiyad laga hadlayo oo aan leenahay ma loo gudbi karaa iyo ma loo gudbaya iyo ma loo gudbay, ayada laftirkeeda waxaan qabaa inay tahay guul tahay, oo sheekadaas laga sheekeynaya laftirkeeda waa guul baad moodaa. sax. haddaan usoo noqdo midda puntland. puntland runtii waxaad is leedahay waxaa hadda ka jira system marna haddaan dhinac ka fiirino dimuqraadi ah, system haddaan dhinac ka fiirina aan dimuqraadi dhammaystiran ahayn. tusaale ahaan dimuqraadigu hadba koley wuxuu ka bilowdaa heer buu ka bilowdaa. saa la socotaan puntland odayaal baa isu yimid, jaartar bay qorteen, waxbay ku heshiiyeen, wixii ku heshiiyeenna waa hirgeliyeen. madaxweynihii ugu horreeyey soo maray allah naxariistay wuxuu ahaa mudane cabdullaahi yuusuf axmed. madaxweynihii ku xigayna wuxuu ahaa mudane cabdi xaashi. waxaa ku xigay oo ka dambeeyey ninka la yidhaahdo cadde muuse. haddana waxaa haya ninka la yidhahdo faroole. intuba waxay ku yimaadeen nidaam doorasho ah. doorashadaasu hadday rabto ha ahaato mid ama korrabtid ha ahaato lacag la bixiyey, ama aan ugu yeerno mid maaragtay cadaalada, nooc kasta aan ugu yeernaba. laakiin qaab waxaa loo maray oo dimuqraadi ah, oo maadaama waddanku dhaqaalena uusan lahayn oo lagu sameeyo tirakoob iyo doorasho, dalkuna uu ka soo baxay dagaallo ka soo baxeen. waxaad moodaa system markaas qaab dimuqraadi oo kale in la sameeyey, oo odayaashii la yiri gobol walba ha keeno dad maaragtay baarlamaanka u gala. markii dadkii lasoo xulayna dadkii ay ayagu markaas ay sii doorteen madaxweynaha, sida hadda qaabka ay ku dhisantahay dowladda federaalk oo kale. ama maamulka dadku waa u bisil yahay, waana u diyaar. marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa in discussionka dadka qaarkiis ay u leexiyaan ay yidhaahdaan dadka shacbiga ah reer puntland baan diyaar u ahayn dimuqraadiyadda. laakiin anigu runtii fikir ka duwan baan qabaa oo ah in maamulada jira laga soo bilaabo kii ugu horreeyey ilaa hadda kan jooga madaxweyne faroole inaysan diyaar u ahayn inay hirgeliyaan dimuqraadiyadda. marka maxaad is leedahay ugu wacan in aynan u dooneynin? waayo sida aad ka wada dhawaajiseen dimuqraadiyaddu waa wax ay dadku ku horumari karaan. maxaad is leedahay iyagu ku diidi karaan? waa arrin cad weye saalax, waa mahadsantahay. su-aal aad iyo aad runtii dadku ay laftkooda isweydiinayaan weye. maxaa maamuladu u diidayaan ama u hor istaagayaan in dimuqraadiyad la sameeyo? si aad la socotid maamuladu hadda cid ku kontarosha
dhaqaalaha waddanka soo baxa ma jirto siyaasadda sidoo kale sida meeshay rabaan bay marsiistaan dalka waxay u isticmaalaan hay-ad ama ganacsi goob ganacsi ayagu ay leeyihiin sidaas darteed haddii dimuqraadiyad ay timaado waxaa imaanaysa asxaabbaa imaanaysa waa la isla xisaabtamayaa daldalooladooda dhan baa la ifinayaa dadkii baa lagu tartamayaa dadku laftirkooda joyce bay yeelanayaan ay kala aadaan marka waxa ugu weyn oo hadda maamulada ku khasbaya inaysan dimuqraadi u gudbin waxay tahay waxay u arkaan in qalinka lagu qabsanayo waxay u arkaan in maamulku lagu qabsanayo waxay u arkaan in si saraaxad leh loo saxayo marka waxa ay ka cararayaan oo dhanba waxay tahay in la saxo sababtoo qofku hadduu ogol yahay in la saxo qofku hadduu ogol yahay in daldalooladiisa sanadiya loo ifiyo waxaan u malaynayaa inaysan dhib lahaateen in dimuqraadiyadu uu qofku maarata cabsi ka qaato laakiin waxaan anigu ogahay oo qof walbana runtii uu maskaxda ku haya waxa keliya oo not only puntland keliya ma aha laakiin soomaaliya oo dhan haddaan ka soo bilowno dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo meel kastaba waxaa lagu sixi karaa in ay yimaadaan dad kala afkaara dad kala fikri duwan oo meelaha khaldan ifin kara oo sixi kara iyo dowlad haysata dad la tartama si ay tartanka u gasho sababtoo haddaysan hadda dowladdu tartan hayn waxay rabtay samaynaysa waxay rabtay qasaysaa haddan tusaale haddaan soo qaadano puntland ka soo qaad qof wariyaa maanta hadduu hadlo oo dowladdu wax ka sheego dowladdii u qaadan mayso wax ka sheegaas in wariyuhu uu ku saxeeyey meel ama daldalool jiray ama dhaliil jirtay in dowladdu ay ka faa'iidaysato oo saxdo markiiba dowladdu waxay u arkaysaa si khaldan iyo inaan shacbiga armaa laydinku kiciya wariyihii bay xiraysaa cabdiraxmaan giblax waxaad dhaliishay ama aad dhaliil soo jeedisay maamulka haatan ka jira puntland adiga waxaa tahay murashax si ka duwan haddaad u samayn lahayd hadda sida qaabka ay wax u wadaan ama ay u diyaarinayaan habka dimuqraadiyadda sidee baad u samayn lahayd adigu waa mahadsantahay saalax bismillahi raxmaan horta hor iyo horaale wax walba waxna waa dhisid waxna waxaa weeye inaad markaas joojisid dhiigbaxa markaa la joojiyo midda ugu horeysa horta dadka waxooda u deynayna anagu haddaan wadanka aanu qaban lahayn adduunka waxa wax lagu horumariyaa maskaxda iyo kasakow waa dhaqaalo wey dhaqaalaha marka ama wadanku gala ama dad sheebkood buu galaa hadduu wadanka galana waa ka muuqda hadduu dad sheebkood galan dadkaasu ka muuqda marka anagu hadda dhaqaalihii puntland wadankii kama muuqdo waxaa tusaale noogu horeysa u muuqata eerboorkii boosaaso oo uu ilaahay ka abaalmariyey madaxweyne cabdi muuse uu bilaabay oo bildinkii dhisay meeshii lagu soo degaya laga dhoofay uu dhisay weli waxaa laga iyadoo maarata runtii qof walba ka khushuucayo kana xun yahay waxaa laga diyaaraddu ka duushaa meel boora bay ka duushaa waxaan u malaynayaa puntland ceebtaasaa ugu filan tan ugu weyn ugu filan runtii wixii la bilaabay waxaan ku rahdaa 7 sano ka hor la bilaabay oo ninkii dhisay dhexda gaarsiiyey in xataa taa la dhamaystiri waayo waxay muujinaysaa horta xaaladdu runtii meesha ay marayso wadooyinka maalin kasta dadka ku dhamaadeen ku gadoomayso haddeertatan aan maqlaynay inay saada cali warsame ay baabur maartay ku dhaawacantay waxa weye waa la samayn karay waxaasoo dhan waxaan horta dadka waxooda u deynayna anagu waxooda wax ugu qabanayna marka ugu horeysa marka labaad waxaan aaminsanahay system in la dhiso adduunka waxaa lagu kala hormara waa system dadka wadanka iyaga u dhashay way ka yaacayaan wayna kasoo yaaceen kuwa hadda joogaana safar bay jecel yihiin waxa weeye sababtuna waxa weeye system baa meesha ka jira system hadduu jiro dadku iyagaa waxooda dhisanahay tusaale ahaan qofkii xanuunsan malaysiyu aada inta aan garanayo 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 intaas lagu soo daweeya socodka iyo safarka iska dhaaf hal isbitaal oo destination ah oo ta ganacsada lasugu yeero oo regulation rule loo suubiyo leeyahay meeshaan dhista you have guarantees inay waxaan laydinka taabanaynin laydin ilaalinhayo oo respect lagu siiyo oo 25 milyan 30 milyan ku kacdo oo dadka looga baajiyo sida kusii dhimanaya waa wax weyn daawada dhacday oo dadka cunaya yacni waxa weeye meesha tan waxaa loo baahan regulation lagu kala dambeeyo anigu midda aan arkayo waxa weeye in la abuuro system kasoo bilowda number 1 government restructuring dib loo structure gareeyo waxaan ku rahdaa land wadanka iyaga kuma qorin shacabka iyagu wadanka iyaga kuma qora hadda wax wadanka iyaga lama yaqaan runtii waa iska joognaa wadanka in wadanka la diiwaangeliyo in si kasta maarata loo sharciyeeyo baarlamanka awoodiisa in la siiyo baarlamanka puntland hadda oo ah dadkii qaanuunka dejin lahaa xor ma aha
baarlamanka gudihiisaa lagu weeraray banaankiisaa lagu weeraray opinionkooda ma dhiiban karaan waa nimankii waddanka mas-uulka ah oo loo dirsaday wey dowladdu waa shaqaale u shaqaysa oo ayaga kusoo laabatay oo dhafoorka xabada uga haysaa waxaasoo dhan meeshan ka baxaan weeye marka anigu system baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay institution building marka haddii haatan aan ninkaas hadda talada haya oo asagaba dee nin walaalkeena ah aanan codagtiisa iyo shidiisa aanan raadinayn sidaas aanu muwaadiniinta kale u jecel lahay baraarahooda asagaba u jecel lahay laakiin haddii talada isaga ay kasoo wareegto waxaan hirgelin lahay nidaam nalaka dhaxlo oo furfuran oo dadku sameeya runtii taas waxay keeni doontaa dhib weyn bay keeni doontaa marka hadda la gaaro xilligan transitionka oo dimuqraadiyadda ah waxaana imaan doonaa isqabqabsi fara badan iyo sida hadda aad sheegaysa in xuduudaha la isku qabsado haddaan usoo laabto aasaaskii puntland gobol weyn oo gobollada ugu weyn ahaa oo ka mid ah gobolka sool waxaad la socotaan in uu gacantii puntland uu ka maqan yahay muddo dhowr sano ah aan weliba la isweydiin haba ka maqnaatee aan weliba la isweydiin xagee ku maqan yahay iyo ma la qabanayaa dib ma loo xoreynayaa yaa haya runtii waxaan u malaynayaa waa boog ama nabar madow oo puntland ku yaalla wey goorta iska fujin doonta aanu ma garanayo aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq gunti iyo gabagabadii maxaad la wadaagi lahayd dadka ku dhegeysanaya aad baad umahadsan tahay saalax nuur saalax doonyaale ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkan ka yar sheego madaxweynaha haatan talada haya ee la yidhaahdo cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole muddadii uu hayay wadanka taladiisa puntland ama dowlad goboleedka puntland wax badan ayuu qabtay aniga ra'yigayga ama sida muuqato factiska sax tusaale ahaan soo saaridda shidaalka hadda laga la filayo inkastoo caddamuuse waqtigiisa ay soo bilaabatay laakiin dardar fara badan ayuu geliyey shirarkii garoowan iyo garoowatuu soomaaliya oo dhan laga arrinsanayay nabadgelyadeeda buu wax ka qabtay koobkii kubadda cagta ee ka dhacay gobolada soomaaliya o dhan lagu qabtay garoowe ayuu qabtay shirkii ururada haweenka ee lagu qabtay garoowe ayuu qabtay xilligiisii shirkii culamaa udiinka soomaaliyeed ee lagu qabtay garoowe ayuu qabtay macnaha aad ayaana kalsooni fara badan ugu qabaa in uu xilliga intaanu talada ka degin nidaamkan dimuqraadiga uu gaarsiin doono khudbadiisii ugu horreysay ee markuu talada qabtayna waxaa ka mid ahayd wuxuu yidhi waxaan gaarsiin doonaa dalka maamulkayagu in ay noqoto asxaab la furo oo doorashana la gaaro wax technicality ah way dhici karaan marka ma is leedahay arrintaasi guul bay ku socotaa oo meel wacan bay maraysaa hadalkii iyo ballanqaadkii uu fulayay cabdiraxmaan maadaama waxyaabaha badan oo uu qabtay inuu noqon doono nin role model u noqon doono maamulada puntland soo mari doona oo uu ka mid yahay gablax insha allahu markuu talada qabto oo uu isaguna halkaa kasii amba qaadi doono dadka shacbi weynaha puntlandna waxaan odhan lahaa cabdiraxmaan baa wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi waa inay isbitaal dhistaan dadka reer puntland iyaga ayaan ogolayn inay dulkooda maalgeliyaan tusaale ahaan magaaladan minneapolis ama gobolkan aan ku noolnahay dadka reer puntland ee jooga ilaa 25,000 oo qof waa ka badan yihiin waa reer puntland dadka keliya hadday tagaan oo dalkooda dhisayaan meelaha ay masar iyo etoobiya iyo kenya iyo meelaha aadayaan waxaa ficnaan lahayd inay intay dhoofaan ay wadankooda degaan oo iimaansadaan oo maaragtay horumarin gaarsiiyaan waayo mahmaha holandiisa waxay tidhaahdaa adduunka ilaahay baa sameeyey laakiin hollandna waxaa sameeyey holandiiska marka puntland haddii biyaheeda qayb kharaarteeda iska kulushahay dadka ayaa hagaajisan kara marka waxaan oran lahaa dadku wadankooda ha niyeystaan oo yaanay ku fakerin hayaan baa kaga jira niyadda inay meelo kale u muuqda inay u guuraan bal horta dalkoodii ha ku xasilaan mustir waxaan raacsan lahaa hal eray baan raacsan lahaa waa gartay daqiiqad ka dhiga cismaan waxa weeye meel aan horta nabadgelyo lahayn laguma hiran karo waxaan filayaa kuwa hadda ka hayaamaya iyo kuwa ku dhiiran laha inay wadankii tagaan wax ka qabsadaanba waxa ugu wacan maamul xumada gudaha ka jirta haddii maamul uu gacanta ku qaban lahaa nabadgelyada dalka waxaan qabaa kuwa banaanka joogan waa ku hiran lahaayeen dhaqaalay gashan lahaayeen kuwa gudaha joogan waa iimaansan lahayen intaas raba inaan ku daro waa hagaag murashax cabdiraxmaan gablax kusoo gabagabeynaya horta bismillahi raxmaan raxiim horta waa mahadsan yihiin cismaan iyo cabdirasaaq cabdiraxmaan faroole wakti uu dimuqraadiyad puntland uga hirgeliya ma haysto waktigiisi waa soo qaatay kitaab qur-aan wuxuu gacanta ku saaray public iyadoo ay tahay 4 sano inoo dhaariyey 4tiisii sano January 8 bay uga eg tahay and he has to go way maqlaysaan ilaa iyo January wadan iska daaya guri family dhexdiis dimuqraadiyad loogama asaasi karo waqti waa ka dhamaaday haddii uu dimuqraadiyad ka gaarsiinayana timekaas ku gaarsiin lahaa
hadeerna isbedel u imaayo waqtigiis waa dhamaaday tartanku waa la gelahayaa baarlamankiina waa lasoo xulaya insha allah bidnillahi kariim bisha octoobar la gaaro marka taas horta ciddii fulinaysa waa cidda soo socotay cod kastaba ha noqotay aniga waxa iga go-an oo aan aaminsanahay in aanina jeebka ku ridan karin libertyga shacabka iyo dowladda puntland mideedna doorashadii cabdiraxmaan si sharci ku yimid si sharci anigu ku tagahayaa qofkii fulin kara marka wuxuu isagu fulin waayey oo dimuqraadiyadiintii fulin kara waa inuu markaas keeskiisa la yimaada miiska soo saara oo baarlamanka soo hordhiga asagoo hadduu isbedelay oo fulin karo oo baarlamanka ku qancayaan ha soo horfariisa mar labaad laakiin musuq maasuq iyo waqti baan dheeraysanayaa waa gartay wax ku fulmay waxaan kaloo rabay inaan idhaahdo ganacsatada halkan joogta oo ilaa iyo afrika lacagteeda gelinaysa oo meel kasta yaacaysa sida uu cabdirasaaq u sheegay waa run way jirtaa laakiin dadka ganacsatada waxay lacagtooda meel gelin karaan marka uu ka jiro regulation rule of law sharci protect garaynaya wadankana maxkamad xataa male maxkamadii judicial systemkii dowladda hoose soo gashatay hanti dhowrkii dowladda gashatay meerihii ma hadli karo qofka wixiis haddii xataa laga dhaco meerihii soo report garayn lahaa ma hadli karo maxkamadda aadi lahayd ma jirto nin doonaya cabdiraxmaan fal in magan u noqdo oo asaga soo barbariya ma jiro taas waa aan ganacsigu u imaanayn meesha oo ganacsiga aysan u imaanaynin sharci baa loo baahan yahay in la keeno mana u keeni karo asagoo hadda waaba dhumiyeba maxaan ku rahda awooddii uu ku fulin lahaa wax intaan iyo kalsoonin lagu qabay wuu dhumiyey marka meeshan system cusub bay u baahan tahay doorasho in dhacdo wey insha allah